halka u jeedaan hadda daawanaysaan waxa waaye wadada isku xirta isgoyska Bakaaraha iyo isgoyska Balaxi wadadan waxa goor xarig ka jaray gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Finish waxaan hadda u muuqdaa wada halbowlaha oo isku xirtay isgoysyada Bakaaraha iyo Balaxi runtii waxa wada aad u saxmad badan marka loo eego wadooyinka gobolka Banaadir gaar ahaan wadadan hadda dhaxda ka martay isgoys suuqa weyn ee Bakaaraha wadadan ayaa in dhawaalo waxay ahayd mid go'an oo dhaxbartaga ay ka go'aneed kadib markii ay biyo fara badan fadhiisteen halka loo yaqaan cirtoogtay laakiin hadda dadaalo fara badan sameynta deegaanka waxa suurto gashay in dad la dhisay kaas oo mid kamid ah dadka ku ganacsada isgoyska Bakaaraha dukaana ku leh waxa uu kamid yahay dadka hadda ka shaqeeya isgoyskaasi waxaana uu gadaa shopping ama carwo waana dadka wadadan qayb ka qaaday dhismaheeda dadku aad u soo dhaweeyeen markii wadada xarig laga jaray waxay noqday halbowle suuqa Bakaaraha aad isku xirtay wareega fara badan oo shalay laga soo galay suuqa Bakaaraha hadda waxa muuqata in wadadan ay fududeysay baawarta ka imaado lambar 4 ilaa iyo Madiino waxay toos soo maraan wadadan isku xiraysa Balaxi ilaa iyo suuqa Bakaaraha isgoyska Bakaaraha jawigu hadda waa mid aad u degan wax qalaasa ma jiraan ganacsiga wadadan ka jireen dhamaantiis waa laga saaray baawarta ayaana hadda si toos ah u ismaasho dadka ku ganacsada wadadani ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabada ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ayna sheegeen u muujiyeen soo dhaweyn waxaana aad xarig ka jaray 2 isbuuc ka hor wadadani gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Finish